محمد عبد الرحمن عبد السياد كقلن جبيي جامعة هرمود فاكولتي انجينيرينكا gaar ahaan electrical engineering sanadii 2020 jaamacadda markii aan dhameeyay sidoo kale waxaa jaamacadda fursad noo siisay inaan heerka labaad ee jaamacadda loo yaqaan master degree-ga aan ku diyaarino dalkan anagoo joogna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo fududeeyay inaan diyaarino masterka waxaana uu dhamaaday heerka labaad ee jaamacadda sanadka hadda dhamaaday ee 2023 runtii jaamacadda Hormuud oo aan muddo runtii aan la shaqeynayay waxay ugu leedahay wax badan oo xusuus ah. waxay ahayd meeshii koowaad ee aan ka soo shaqo bilaabo markii aan jaamacadda dhameeyay. fursad ayayna siisay anaga iyo arday badan oo kale oo xilligeeni asna qalin jibinay. waana runtii waxaan jaamacadda iyo maamulkeeda aan ku ammaanayo maadaama ay fursado muhiim ah ay u abuureen dhalinyarta jaamacadda ka qalin jibiyay iyo kuwa kale badan. hadda waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda Beko ee korontada. waxaan ahay electrical engineer ka mid ah shirkadda gaar ahaan qaybteeda distribution-ka. waxaan ugu magacaabanahay branch engineer. branch engineer-ka waxa uu qabto shaqooyinka ugu muhiimsan ee aan qabano waxaa ka mid ah qaybinta korontada, koronto gelinta guryaha, sidoo kaleeto inaan ka jawaabno dhammaan baahiyaha macaamiisha ee korontada la xiriira ee branchigan hoos yimaada. jaamacadda Hormuud runtii waxyaabo badan oo runtii ay ardada kaleeta ardada jaamacadda ka qalin jibiyay oo ku caawisay oo wax weyn ka taray goobaha shaqada ayaa jira. gaar ahaan markii la dhaho xagga tababarka ardada la siiyo seminaarada oo weliba ay ugu muhiimsan tahay midda internship-ka xilliyada dambe ee ardadu ay qalin jibinayaan ama sanadaha ugu dambeeya, kaasoo theory-gii ay jaamacadda ku qaateen u bedelaya mid practical ah. wax badanna ka caawisay runtii markay goobaha shaqada imaadeen inaysan ku wareerin shaqooyinkii ay qabanayeen ee hore kala falgaleen ee hore shaqooyinkooda ay ka qabsadeen. shirkadda Beko runtii waxay fursad siisay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan, hadday ahaan lahaayeen kuwa gacanta ka shaqeeya, kuwa aqoontooda ku shaqeeya jaamacado kala duwan, fiildiyo kala duwan ka soo baxay. annaga bahdeena electrical engineering-ka waxaan fursad u helnay inaan imtixaan shirkaddu soo bandhigtay aan imtixaankii galno. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu soo guuleeyey. shirkaddana waa uga mahad celinaynaa fursadahaas ay u abuureyso dhalinyarta Soomaaliyeed ee jaamacadaha soo dhameeyey iyadoo aan ognahay shaqo la'aanta dalkeena ka jirta Soomaaliya. waxaan kaloo u mahad celinayaa jaamacadda oo runtii markii aan jaamacadda ka baxnay ba fursaddan noo abuurtay anigoo la shaqeynayana aan fursaddaani shirkadda Beko sidoo kale aan imtixaanku galay aan fursaddaasi ka helay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xafiiska public relations-ka ee jaamacadda Hormuud oo runtii maanta sharaf weyn ii tahay in maanta xafiiskayga shirkadda Beko ay ugu soo booqdaan. waan uga mahad celinayaa runtii dadaalka dheeraadka ay wadaan iyo runtii sidii uga warhaayaan ardadii jaamacadda ka qalin jibiyey ardada kaleeto weli jaamacadda dhigtan ay ugu dhiirigelinayaan una tusayaan waxqabadkii jaamacadda iyo ardadii ka qalin jibiyey inay yihiin dad active oo shaqeynayo. runtii keligay maaha shirkadda Beko markii la dhaho electrical engineering ka shaqeeya in badan oo kamid ah jaamacadda ay ka soo baxeen, kuwa madaxa iyo kuwa baranjiye jooga oo aad u badan run ahaantii, iyo kuwa ka shaqeeya fielding electricalka meelo ka baxsan oo xafiisyada kaleeta ah. waxaan xasuustaa waagii aan jaamacadda dhiganayay nin baa i weydiiyey maxaa dhigataa, waxaan ku yidhi electrical engineering. marka wuxuu yidhi matoor maa soo qaadanaysaa, dadka maa koronto ka siinaysaa. marka dadku way la yaabanayeen run ahaantii waagii horeeto electrical engineering-ka, laakiin hadda way ku baraarugeen macnaha iyo miisaanka uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay. waxaan leeyahay gaar ahaan bahda electrical engineering-ka mustaqbal fiican aad leedihiin, halkiina kasii wada insha Allah. marka aad ugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo dhammaan jaamacadda Hormuud ayaan u mahad celinayaa, maamulkeeda, macallimiinteeda, ardayda runtii dhigtana waxaan ku dhiirigelinayaa inay runtii halkaasi kasii laba jibaaraan dadaalkooda ay wadaan, na aaminaan waxa ay baranayaan inay yihiin wax suuqa macno ka leh
aqoontooda iyo kartidoodana ay aaminaan